wareegii labaad aan noo bilaabanaya waa waxaad ka heshaan haddii Ilaahay yiraahdo waxaan idin leenahay inta goor tahay deegaankan waxaad u geysan karteen wad u geysateen xisaab way dambaysaa laakiin marka hore ka dhamaado ka dhaxbaxa haddaadan ka bixinana waxaad sugaysaan waa in leedinku dhex dilo wax kale idin yaala ma jiraan shabaab iyo sharwadana Soomaaliya boos uga ma banaana gaar ahaan bulshadeynta halkan ku sugan deegaanada ee deegaan shabaab iyo arkaxiso iyo sharwada boos uga ma banaana waan ka adkaanayna hadduu Ilaahay karaali noqdo waxaan ku faraxsanahay geesiyaasha dhalinyarada ah ee halkan joogo iyo generaalkaba dadku propagandadu waxaan maqal jiray waa dagaalka barkiis dadkan deegaankan ama Hirshabeelle ama Shabeellada Dhexe ama reer Galgaduud masaafada ay soo jeexeen iyo dadaalka ay soo mareen waad maqlaysiin in la lahaa iyadoo magac qabiil loo bixinayo dadkaas meel uma socdaan haddii aysan dadkaan meel u socon meeshaan caawa ay joogaan soo maysa gaareen iyo isbitaallo kale oo yaryar oo mobile ah oo ciidamada la guurguura oo dhaqaatiirtooda iyo kalkaaliyaashooda wata iyo ambalaasyadooda intaba runtii dadaaladaas oo dhan waxa loo bixinayo waxay tahay in deegaanada Soomaaliyeed oo dhan ay cadawga ka xoroobaan cadawga argixisada ah maanta Soomaaliya boos uga banaan ma jiro dhammaan ummadda ay meel uga soo wada jeesato dawladnimadana aan dhisano cadawga al-shabaab waa runtii waa dhinteen ma ummadan naxariis uma hayn 16 sano ilaa 17 sano ay dhulkan joogeen dadkii deegaanka akhyaartii iyo dhalinyaradii way joogaan halkan ma aysan jirin dugsiyo quraanka lagu barto ma jirin meelo kale oo dadku ay wax isugu sheegi karaan ma jirin waxay ahaayeen dad diin laawayaala dadka inay dhibaan oo ay dhacaan kaliya caado ka dhigtay